xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa mar kale daboolka ka qaaday inaanay kalsooni ku qabin guddiga doorashooyinka qaranka kana hadlay mowqifkooda ku aadan go'aankii ay wadajirka u qaateen labada xisbi ee u cidiya kulmiye war-saxaafadeed oo nuqul ka mid ah helay codka bariga afrika ayaa uu xisbiga wadani ku sheegay 5 qodob oo uu ku cadaynayo mowqifkiisa ku aadan go'aankii shalay qaateen labada xisbi dhinaca kalena waxa uu wadani fariin u diray golaha guurtida Soomaaliland oo la filayo inay maalmaha soo socda muddo ka dhow sameeyaan golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee waqtigooda u dhamaaday qodobada war-saxaafadeedka xisbiga wadani waxaa ka mid ahaa in aanu xisbigu ogolayn doorasho xaraan ah oo xisbiga kulmiye dawada ka riixayo waa sida uu qornaa war-saxaafadeed ka soo baxay xisbiga wadani xisbigu waxa uu fariin u diray golaha guurtida oo ugu baaqay inay ilaaliyaan hanaanka geedi socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka ee dalku hore ugu hana qaaday duniduna ay ku majeeratay waxaanu bulshada Soomaaliland ugu baaqay inay u soo jeestaan khatarta uu sheegay inay ka iman karto in dalku isku bedelo hanaan kala talisnimo